بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان إلهي بينهم مهد علمنا وحاسون معوينا هو الله تريي إيه وحبضنا الله ترين كريم بين السيي إلهي بينهم مهد علمنا وحيننا برينا إنه إلهي إنه كرديو هذا الكهوس والبقى weliba hablahu kaadiya run ahaantii hadal qiimo leh hadduu talo yahay hadduu duco yahay hadduu hambalyo yahay intaba halkan waa laga yidhi wanaaggiisa iyo waxtarkiisa ilaahay hanagu anfaco ilaahayna hanaga aqbalo kow waxaan u mahad celinayaa dhammaan marti sharafta mudanta kala duwan meel dheer iyo meel dhowba ka yimi ee madashan quruxda badan caawa martida ku ah ee aan ogahay meelaha ay ka kala yimaadeen aad iyo aad baan ugu mahad celinaya waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran waxaan kaloo u mahad celinayaa labada mudane ee madashan quruxda badan iyo maalgashigan qaaliga ah u quuray dalkooda iyo gobolkooda iyo halkii ay ka soo jeedeen ee ku anfacaya inay ku anfacaan ummadda darteed iyagoo maal gashan karayay Mareykanka iyo magaalooyinka waaweyn ee customerka iyo dadka xoolaha joogaan ee lacag badan laga faa'iidi karayo inay dalkoodii u quuraan oo ka dhisaan runtii waa wax aad u qiimo badan oo ay tahay in la arko oo la garto aad iyo aad bay ugu mahad celinayna run ahaantii waqtigooda inagu yar labada oday profilkooda lama sheegin ana sheegi kari maayo waayo waa taariikh dheer reer jaamac galaal aad iyo aad bay taariikhdooda iyo waxtarkooda u ballaaran tahay sheekhi ugu horeeyay halkan ka hadlay xadiiskii uu yidhi dadka waxa ugu khayr badan anfacuhum linnaas way inugu filanta waxaa la ii sheegaa maalin qura suldaanka aabihii isagoo dhalinyaro ah oo reer cadmeed ah inuu 60 qof ka qaaday oo reer Soomaaliland cadan oo u shaqo geeyay saldanada Cumaan oo deedna halka ku tarmeen oo jaaliyad qiimo badan oo malaa'imka dhowr kun oo qoys waxa lama tirin karo ee waxyaabaha ay runtii ay sameeyeen waxaan ogahay jaamacadda iminka Hindiseeda ay wadaan oo gobolka Saraar ay ka wadaan iyo biyaha laga sheekeeyay waxyaabo fara badan oo kale aad iyo aad baynu runtii ugu hambalyeynayna maalka la bixiyaana maalka wuu badiyaayo xadiiskii nabigu waa kii ahaa ma naqasad sadaqatun min maalin taana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u barakeeyo jaamac waa laga sheekeeyey caqligiisa iyo lugihiisa dhammaan iyo garaadkiisa iyo aqoontiisaba ilaahay waa u barakeeyey waxaan halkan laga sheegin kaba sheekayn karno waxyaabaha jaamac iyo maraaxisha uu soo maray macallinkiisii weynaa ee halkan joogay baa runtii wax ka taataabtay laakiin waxaynu ognahay in 2 jeer loo aqoonsaday coachka adduunka ugu qaalisan ee lambar 1 in loo aqoonsaday adduunka waxaan isleeyahay haddii uu Nigeria ahaan lahaa maxaa dhahay ama Chinese ahaan lahaa ama meel kale ahaan lahaa maanta wuxuu dadka xidigaha ee adduunka laga sheekeeyo ayuu noqon lahaa laakiin walillahi alxamdu sidaas uu yahay iminka inuu dadkiisa ka mid yahay oo dalkiisa iyo dadkiisa ku qanacsan yahay baa uga khayroon waa ugu hambalyeynayna wax badan buu ka sameeyay dalka gudihiisa oo la soo sheekeeyay aynaba waridaad waxa intaa u dheer sidii la sheegay iskuulo majaan ama waxbarasho bilaasha sida iskuulka sare ee waridaad laga dhisay oo kale sida bahda isboortiga iyo isbarbartaageeda iyo waxyaabo fara badan oo kale sidoo kale waxa halkan burcayminka ay ka sameeyeen isaga iyo xaaskiisuba runtii qarin maayo labadooduba waxa weeyaan way ka sameeyeen waliba xaajiyada u sii xil saaran Su'aad Cabdiraxmaan Cali Ardo iskuul la yiraahdo British School oo isagana halkan laga sameeyay oo aan fili doono in laga aflixi doono insha Allah bismillaahir kariim waxtarkooda uu badan yahay waxaan kaga baxayaa ilaahay ha u barakeeyo maalkooda waxa kaga baxaya 2 kablood kaftagna waxaan leeyahay horta in
kaftan maaha in la shuraakoobo horena waa looga sheekeeyay aad baa looga sheekeeyay midnimadana ilaahay baa ka sheekeeyay oo in dadku midoobo oo maxaa dhahay wactasmu bihablillahi jamiican baa inaga filan labada nin waxay iska kaashadeen waxa weeyaan maalkood iyo maskaxdooda way isu geeyeen inta wixii ka badanna wax ka badan bay isu geeyin kartaa marka taana waan dhiiri gelinayaa in yar baan ku darayaa oo hudheel qurux badan baa Hargeysa laga sameeyo reer Burca ka sameeyay Suldaan Cabdiraxmaan inanu dhalay Umar la yiraaho ayaa hudheelka sharaxay Suldaan baa loo bixiyay bahalaad qurux badan buu ahaa reer Hargeysa nimankii xadaarada aad u yaqaanay ayaa maalintii dambe lagu casumay reer magaalka markaas la warbaalkan qoladii reer bariga ahayd baa dhistay wallahi ma iyaga qurux badan abaalku dadna waxa la yiri oo yaa dhisay misaal waliba reer Caynaba dhisay ma inta oran bay waxay dhaaheen tamala waa nimankii si fi xadaariga ah baa bahalka dhisay markaas haddana la yiri ma aha nimankii Samane iyo nimankii aadan midooba hadda bahalka dhisay ma aha oo ay hadda waa reer Caynaba iyo Caynaba hadda bahalka dhistay hadda horay u socod Caynaba horta horay u socod waxaan imika idin sheegayaa kan laftiisa markii aanu soo galay dhinaca cafeteria aanu fadhiisanayo Saciid Suluba yiri wallahi linkan hudheelo badan oo dhisay dawaan arkay kan uu ku farayarayst bahasha cafeteria iyo quruxdan markaas lagu yiri shirki hadda jaamacan ma aha Suldaankuna markaas xadaaradii baa meesha ka muuqato iyaduna waa xadaaradaasina meesha iyaduna waa ka muuqata tana waa ugu hambalyeynayna waxana keenay shuraakada iyo midnimada qodobka kaga baxaya waxa weeye isboortigu waa wax qiimo badan caafimaadkiisa iyo waxa weeye waana sharci oo diinteena inoo sheegtay wax badan kana waxaynu dhiiri gelinaynaa waxana inaga filan likii 80 ku dhawaayay maxaa dhahay Faarax Xadhiglo horteeda fadhiya quruxdiisa ma sha Allah Allah u siyaadi waxa weeye jaamacana in yar baan ka oranayaa jaamac baa wuxuu igu yiri ana ku garanayo oo 5 sanadood baan ka weyna war jaamac ma sida maaha ma jaamac ma ana huba waxa weeye ka weyna 5 ka weyn baan isla karo shamal ka weyna hadaba dadka ka dhaadhiciye bal dadku ya dadkii aan isku dawo waxaan ku jaamac shan iga weey ciidamo waa iga dhageysan weey imika idin iga dhageysan maysan waxa sida lagu noqonayaa dawa isboortiga baalkaana hal laga warhayo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.